رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay dhaqaatiir ka socday dalka ay noolalahan Jamhuuriyadda Jabuuti oo Muqdisho yimid sidii uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dhaawacyada dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii qawaariijtu ku geysteen isgoyska kilometer 5 29 bishiina soo dhaaftay dhaqaatiirtan oo gaaraya 20 ayaa intii ay ku sugnaayeen caasimadda Muqdisho waxa ay ka qayb qaateen daweynta iyo daryeelka dhaawacyada ku jira isbitaalada Muqdisho iyagoo gacan siinaya dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahad celiyay dhaqaatiirta iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti taageerada hagar la'aaneed ee la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed xilliyada adag. marka aad iyo aad baad mahadsantihiin idinka dhaqaatiir ahaan qaybihiina kala duwan waa idinka mahad celinaynaa runtii dadaalka aad sameyseen iyo sacrifice ka sameyseen gurigiina ma joogtaan oo markaad gurigaaga joogto wax fara badan iyo dadkaaga soo dul qaadanaysaa ajri fara badan waa idin socdaa iyo khayr fara badan waxaan si gaar ah runtii ugu mahad celinayaa safiirka oo dadaal dheeri ah runtii ka geystay arrimahan oo dhan habeen iyo maalinna dadaalkaas wada sidii uu isugu toli lahaa walaalaha iyo sidii uu danahooda u midayn lahaa iyo sidii isugu xiri lahaa labada wadan ee walaalaha iyo labada shacab ee walaalaha ayuu runtii aad uga shaqeeyaa wuuna ku mahadsan yahay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaad noqon doontaan idinkoo soo guuleystay missionka aad u soo baxdeen ku guuleystay walaalihiin soo daweeyay niyadda ayaad u dhisteen markaad timaadeen shacabka Soomaaliyeed xilliga aad ugu baahan tahay walaal waa markii ay duruufaha noocaas jiraan markuu walaalkaasi degdeg uga soo jawaabo markii ay yimaado runtii waliba uu kula dego oo kula jiifo kula seexdo waxa weeye waxay leedahay dhigaal khaas ah oo qalbiga kaaga dhigan iyo niyadda ayay yeelanaysaa. Dowladda Jabuuti ayaa door muhiim ah waxa ay ka geysatay dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed markii uu soo gaaray burburka. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ku amaanay sida ay mar walba ugu taagan yihiin gacan qabashada ummadda Soomaaliyeed marxalad walba ay ku sugan yihiin. reer Jabuuti waxaan rabaa